ربط الديار كوا عيدا ماذا قلب كالسيدة أو فلونية أمركي حكومة دا أها إن عيدا كفنا اللوصو حول عاصمة دا حصلين تيدا وحاكان قلبت الديار كوا سد حقوتو أو كترسن عيدا كاس أو يسوقو ترى أفرت عيدا قرنك قلب كالسيدة عيدا كاسو مانتي تدياروها انت هكان تاغن سد جباركود اي دبد تاغن intanse intuu golahaan u qaaday halkan la soo istaajiyay sidii aadna amartay waxaan hay'adaha amniga ka shaqeeyeen in ciidankan saddexda guuto ah la keeno halkan si aan u xaqiijino amniga gobolka Banaadir iyo dhammaan inta u dhow iyo inta ka fogba ciidankan waxay diyaar u yihiin awaamirta inay qaataan waxay diyaar u yihiin in shacabkooda ay la shaqeeyaan waxay diyaar u yihiin inay cirib tiraan nimanka burcadiimeedka ah oo shacabka Soomaaliyeed gumaada iyagaana insha Allah ta'ala maantay soo cirib tiri doona oo waxa weey waxba kama soo hari doonaan ciidankan waa geesiyaal runtii diyaar u ah inay xasiliyaan caasimadda isla markaana ay ka hortagaan nabadiidka u diidan shacabka Soomaaliyeed inay horumar gaaraan dawladnimo gaaraan lana tartamaan dalalka kale adduunka caasimaddu si u noqoto caasimadii dalka hooyadii ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in amnigeeda la sugo ciidankan waa ciidankii loo soo xulay waxaan aad ugu mahadcelinayaa taliyaasha ciidamada oo runtii juhdi badan geliyay sidoo kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo adiga ra'iisul wasaare oo runtii amniga sidaad u siiseen ahmiyadda gaarka ah iyo in la helo xasilin nabad waarta waxayna tusaysaa in shacabka Soomaaliyeedna ay kalsooni ku qabaan hoggaankiina sidaas daraadeed mudan ra'iisul wasaare ku soo dhawow waxaa la idinka rabaa marka inaad u hoggaansanaantaan awaamirta idin siiyaan madaxdiinna madaxdana waxaa laga rabaa xuquuqdiinna inay bixiyaan laakiin sugidda amnigu macnaheedu ma aha in dadka la dhibaateeyo waxaa muhiim ah horta in magaaladu ay tiraahdo waxa yimid ciidan na daryeela na ixtiraama xaafadaheenni waa laga dhameeyey kuwii dhagarwadayaasha ahaa habeenkii baa xaafadaha la socdaa ma cabsanayno haddii laakiin dadka dariiqa maraya idinka baqaan amni aad sugtaan iska daaya idinkaa ummadda dhibaato ku ah idinkaana leedin habaaraya waxaan codsanay ciidan in la isu keeno ciidanka la isu keeno waa idinkaa laydinku tijaabinayaa wixii hore u dhici waayey oo ah 9 maalmood kadib waxaa laydinka rabaa inaad isla xisaabtantaan idinkana laydinla xisaabtamo dadka Soomaaliyeed way dhibaatoobeen idinku waxaad u timaadeen inaad dhibka ka saartaan inaad dhib u keentaan laydinkama rabo waxaan rajaynayaa markii inuu Ilaahay idinka dhigo kuwii ummadda Soomaaliyeed horumar u horseeday wax walba oo u baahan tihiin kala hadla taliyaashiina agabkiina raashinkiina daryeelkiina iyo mushaarkiina haddaadan haysanina mushaarkiina u sheega si laydinkugu dhammaystiro laakiin waa inaad ogaataan inaadan ahaynina dad caadi oo tihiin ciidan qaran oo ah ilaaliyayaasha qaranka waana saas u dhaqantiin aad ilaalisaan idinku si aad ummadda Soomaaliyeed u ilaalisaan waxaan idin rajaynayaa guul waa idin soo noqon doona haddii Ilaahay yiraahdo waa idinka soo warqabi doonaa